waxaa maanta degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose lagu qabtay munaasabad lagu taageerayo gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo maalmo ka hor madaxweynaha Koonfur Galbeed u magacaabay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka degmada. ugu horreyn qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadda ayaa u mahadceliyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyagoo ku amaanay inuu yahay nin dadaal badan. gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax waa maanta iska leh gudoomiyaha gobolka cusub Ibraahim Aadan Najax nafkan geelka maana farxad tugan sawkan ku siisa ku dugan ay asay warka waadin fulo asalaamteen حمدا كثيرا طيبا مباركا waxaan halkan soo dhaweynaa una xalbi ambaliyana gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose gudoomiyaha cusub Ibraahim Aadan Najax gudoomiyaha salaamta boqol waa salaamantahay xabdan aad loo soo agaasamay soo dhaweyntii oo aan gudoomiyaha gobolka waaye waxaan ugu talagalnay nafkan geel ah ee uu talagalay soo dhaweyntiisa iyo farxadiisa iyo xafladiisa maanta waxaan farxad ma ah gudoomiyaha oo aan jeclaynay oo gobolka Shabeellada Hoose door marka soo shaqeeyay inta wax soo gaarsiiyay oo maanta tan soo noqday taas aad u faraxsan maanta farxadana oo soo koob karama mudan gudoomiyaha soo dhawow boqol soo dhawow degmada soo dhawow maamulkaada ciidankaada shacabkaada soo dhawow gudoomiyaha waa salaamantahay salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ilaahay iska leh gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo cusub anaga ka sayno Ibraahim Aadan Najax oo la kasay gobolka Shabeellada Hoose aad la kasay wax qabashigiis wax tarkiis aniga u hadlaayo taleefo hageenka degmada Qoryooley Ibraahim Hadaaf Ibraahim oo Usmaanta oo halfadiis aan u dhignay oo degmada Qoryooley oo si weyn maamul abniga anoo ka ahay yo taliyaha saldhigga Ali Maxamed Aadan oo garabkay taagan oo anoo ku hadlaayo taleefo hageen aan ah Ibraahim Hadaaf oo maanta degmada Qoryooley oo farakiis oo la kooban karo maana shacabka maala ciidanka gudoomiye ka soo dhawaaw gobolka Shabeellada Hoose qaasatan degmada Qoryooley Koonfur Galbeed iyo maamulkii amniga ayaa maanta waxa ugu kulunay soo dhaweyntii gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Najax soo dhaweyntiisa ugu kulunay maanta annagoo ugu talagalnay neefkan geel geesiin annaga soo dhaweyntiisa maanta u keenay ayaan horta ugu talagalnay oo halfataan gaawan waxaas u dhignay mudane gudoomiye soo dhawow mudane gudoomiye mar saddexaad waay gobolkan Shabeellada Hoose lagu soo celinay lan hada aalad ma lagu soo celin lahayn wanaagaada waxtarkaada markii laga arkay oo laga maaran way lagu soo celiyay annagan waa ku taageersanahay boqol waa ku taageersanahay ciidamada darawiishta Koonfur Galbeed waxa kugu sugaan sidii bil amala kugu sugayna annaga waa ku taageersanahay amniga iyo maamulka waa ku taageersanayeen boqol mudane gudoomiye gobolka Shabeellada Hoose ka soo dhawow gaar ahaan degmada Qoryooley ka soo dhawow walana mudane gudoomiye aad ugu faraxsanahay soo noqoshadaada taana ah wax qabadan ka sugayna mudane gudoomiye Najax ayaa xafladan u sameeyay maanta neefkan geelaa ayaan u soo gadnay ciidanka inaan u galno farxadda gudoomiyaha dartiisa farxadda aan neefkan u soo gadnay alxamdulillah mahad ilaahay baa iska leh thumma gudoomiyaha gobolka boqol jeer ayaan hambalyo leenahay Koonfur Galbeed mana Cabdicasiis Laftagareen hambalyaan leenahay madaxweyne Farmaajo hambalyaan leenahay waa soo dhaweynaynaa waa mahadsantihiin boqolkiiba waa mahadsantihiin gudoomiye Najax noola weliga Muumin Xasan Awees okay raadiyo telefishinka Koonfur Galbeed gobolka Shabeellada Hoose.